qofkii lahaa ilaa hadda annaguna ma naqaan ma wakiilkayguna ma yaqaan dawladuna ma taqaano qofkii alaabtaan lahaa oo loo waday haddii la yaqaan maxkamadda marka ma wakiilkayga waxa lagu haystaa maxaa u soo qaaday wuu u xiran yahay oo maxkamadda horteeda ku hor jooga baabuurku qofku aduu leeyahay hantidiisa oo kareysan kara laakiin waxyaalo uusan qaadi karin oo kirada ka mamnuuca jira waxaana weeye waxyaalaha uusan qaadi karin oo kamid ah wax ummadda haligaya inuu baabuurka saaro ama kira ka qaato ma intaan ba hadii la iska daayaba batariga la iska daayo remote-ka la iska daayo kan maxaa meesha kana weeye qanacsi loo isticmaalo wax loo isticmaal ma jira aan ahayn qarax waa sameyn ku qarax weeye kaliya dekada garacad oo aragteen waxa dhagaxeeda lagu burburiyay waa bahalka xunka weeye dekada aragteen dhagaxeeda waxa lagu burburiyo dekada lagu dhisay waa bahalkaas faahfaahinta eedda xeer ilaaliyaha sagaalkii bishii 8aad 2022 abaaro sagaalkii iyo barkii subaxnimo waxaa degmada Galdogob boolisku ku qabtay gaari dhayna ah oo siday qudaar qare ah iyo qarax ka kooban 100 batari oo 12 ambeer ah iyo 100 fayuus oo qarxiye ah iyo 100 hormuud control ah eedaysanaha koowaad Cabdixakiin Jaamac Xasan 52 jir ina Maryan Ahmed Cigaal ahna mulkilaha baabuurka dhaynaha ah ee hadda yaala qaybta booliska wadahana abbe u ah wuxuu cadeeyay xilligii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha ka ahaa inuu bilaabay taageerada ururka argagixisada al-shabaab markaa kadib Cabdixakiin wuxuu la heshiiyay nin la yiraahdo Ambro oo kaari ah soona saaray gaariga qaraxa loogu sheegay qaraxa electron inuu yahay wuxuu cadeeyay oo kale inuu ku yiri dareewalka gaariga waday soo qaad alaabta markuu wacay dareewalku una sheegay 4 kartoon in loo keenay wuxuuna ka qaatay lacag $80 ah oo kira ah wiilka uu dhalay ee baabuurka wada asaga ku amray inuu qaraxa soo qaado alaabta waxa loo waday Galdogob gaariga waxa waday laba wiil oo uu mid dhalay midna Krishbe yahay waxba kalama socon alaabta shuqulna kuma lahayn Krishbeygu eedaysanaha labaad Farxaan Cabdixakiin Jaamac Xasan 22 jir ina Barliin Nuur ku dhashay Booq degan Galdogob shaqada dareewal wuxuu cadeeyay inuusan al-shabaab ahayn wax xiriirana la yeelan waligiis wuxuu kaloo cadeeyay asagoo jooga Buula Barde meel ka sokaysa inuu weydiiyay eedaysanaha saddexaad Ambro oo kaari ah qarab beeca meel laga helo kadib waxa 4 kartoon u keenay oo loogu sheegay electron kaarigii ahaa Ambro dareewalku wuxuu soo wacay aabihiis Cabdixakiin ahna milkilihii baabuurka uu waday wuxuuna u sheegay 4 kartoon in loo keenay oo electron loogu sheegay wuxuuna Cabdixakiin wiilkii ku yiri aabe soo qaad alaabtaas alaabta qaadisteeda waxa
kula heshiiyey camburo lacag dhan $80 cabdixakiin wuxuu ka soo leexday gaarigu bandiiradle wuxuuna soo maray waxaana camburo uu ku yidhi wiilka markaad tagto goldogob dadkii alaabtu u socotay baa ku soo wacaya wax lambar ahna iyo magacna maysan siinin siduu sheegay aabihiis cabdixakiin wuxuu ku yidhi wiilka markaad magaalada tagto qaraha keliya deji alaabta kale ee kartoomada ah ha saarnaato gaariga wuxuu ka soo leexday gaarigu bandiiradle wuxuuna soo maray jid barmuudo ah oo goldogob toos u gala waxaa lagu baaray intuusan gaarigu goldogob imaan nugaalgibin wuxuuna u sheegay askartii baaraysay inay saaran yihiin baabuurka qare iyo alaabta elektarooniga ah askartii way jeexeen kartoon ka mid ah alaabta waxayna ku arkeen bateriyaasha meesha yaalla wey waxayna fasaxeen gaarigii kadibna wuxuu soo galay magaalada goldogob dhexdeeda waxaana qabtay ciidanka booliska waxaana la geeyey saldhigga booliska goldogob waana la baaray gaarigii waxaana laga soo saaray alaabtaas qaraxa ah ee maxkamadda hor taalla eedaysanaha saddexaad camburo oo ah ninkii qaraxa soo saaray gaariga waa maqane markii gacanta lagu dhigo waa lala xisaabtami doonaa sharcigaana la marin doonaa eedaysanaha afraad eedlaawaha afraad bishaar daahir axmed 19 jir ina timiro cismaan cali wax eed ah oo loo hayo ma jirto sida ku cad gungaarka CID-da gobolka mudug gaalkacyo iyo caddaynta looga qoray garsooro horti cabdixakiin jaamac xasan dheere oo mulkilihii baabuurka ah qodobka ugu horeeya ee xafiiska xeer ilaalinta wuxuu yiri waxa uu waday qarax siiqadaas xoga siiqa sax maaha warka saxda ahi waa waxa uu waday alaab hadda waxaan hor yaala qaraxna ma hor yaalo inteena qol kuma jirin haduu qaraxu halka yaalo laakiin waa alaab haddana sida uu u sheegayo wuxuu xafiiska xeer ilaalintu eediisa ku sheegay inuu yiri wuxuu la heshiiyey nin kiru ka soo qaatay waxa lagu yiri alaabta goorteed magaalada geesid baa qof ka soo doonanaya qofkii uma uusan imaan gaarigii baa la qabtay kiraale waa inuu fuliyaa kiradii iyo wixii uu ka qaatay haduu khasab ku soo qaaday waa nidaam qofkii laha ilaa hadda annaguna ma naqaan ma wakiilkayguna ma yaqaan dawladuna ma taqaano qofkii alaabtaan lahaa oo loo waday haddii la yaqaan maxkamadda la keenay marka ma wakiilkayga waxa lagu haystaa maxaa u soo qaaday buu u xiran yahay oo maxkamadda horteeda ku hor jooga haddaba mudane gudoomiye garsoorayaal ma wakiilkayga cabdixakiin xafiiska xeer ilaalintu xarba hadalka in aad loo fiiriyo qoraalkana waa laga fiirin karaa lama oran waxa uu ka tirsan yahay ururka haddaba mudane gudoomiye garsoorayaal ma wakiilkaygu wuxuu ii sheegay falka lagu eedeynayo inaanu shuqul ku lahayn mudane gudoomiye garsoorayaal marka qarax ma intaan saddexdaa shay buu u baahan yahay jawaabtu waa maya waa aragnay video baan maxkamadda tusi karnaa qarax dhacaya hadday na tusaaneen
waxaa jooga farsamo yaqaano sida la ii sheegay fuse-ka intii lagu xiro bateriga oo remote-ka lagu taabto halka aan dhigno uu qarxo waa qarx waxa jidha ama sawirada laga arkaa uuradu waxa loo yahay budo inay tahay meeday intaasi hadii la isku xiro ay samayso banaanka oo sidaynu arki jirnay dhawaqna leedahay waxyeelana ay samayn karto waa fal la dhihi karo wuxuu waday qofkaasi qarax laakiin wax kale shayyaal kale haday ka maqan yihiin lama oran karo waa qarax laakiin waxa la dhahayaa qalab way qalabka waa electronic haday dambi kuma gelin duurada qalabka waa electronic sababta battery iyo fuse iyo filo ba meelaha yaala wax kale waxaan u maleynayaa inaan waa saddexda kaliya iyadana waxaan rabnaa bal practical-ka dadkan la dhahayo qarax buu waday xeelaaliya ina cadano ma garan waayeen xeelaaliyuhu saddexda inaysan qarax sameyn qalabkan meesha yaalo oo aan qaraxa ku sheegnay waa qayb qaraxa ka mid ah waxaana noo sharaxaya aqoon-yahanadii iyo sancada nimankii yaqaan oo meesha fadhiya dawladdu keentay gaashaan waxaan rabnaa inaad noo sharaxdaan bismillaah waxaan leeyahay qalabkan meesha yaala ma qaraxba mise waa electronic siminka loo fiiriyo alaabtan horta waxa weeye waxyaabaha qaraxa laga sameeyo weeye qaraxu dhameystir ma labadan waa laba isku xiranta baasha halka ka muuqata iyo fiilada mar isku xiraa halkaana waa budo qaraxda kan markuu dabkan kan ka helo baterigan ka helo bukan wuxuu u gudbiyaa kana wuxuu u gudbiyaa budada u gudbiyaa markaas budadana waxay qarxisaa kana wuxuu qarxiyaa budadu qarxiyaa marka waxa deynaysa inuu waxa qarax yahay oo cadin kugu filanba kaasa qof walba u filan maxaa kan loo isticmaalay waa kan meesha u yaalo mariyay meesha batala intaan ba hadii la iska daayaba baterigan la iska daayo remote-ka la iska daayo kan maxaa meesha kana weeyay qanacsi looba isticmaalo wax loo isticmaal ma jiraan aan ahayn qarax waa sameyn ku qarax weeyay kaliya wax uu sameeyay shaqadiis waa qarax sameeyay bis only dekada garacad oo aragteen waxa dhagaxeeda lagu burburiyay waa bahalka xunka weeyay dekada aragteen dhagaxeeda waxa lagu burburiyo dekada lagu dhisay waa bahalkaas kan macni waa kii lagu xirayay soo hadda inoo sheegay maxamed waana kan ka caawiya inay ishelaan remote-kii iyo detonator-kii macni remote-kan meel fog buu soo tagayaa kan marka waxa weeye waa kii qaraxiina waa lagu xirayay oo isagu qarax ku haraya kaasna waa kii la tagayay oo meesha fog la aadayay oo isaguna qaraxi macni marka fulinay weeye kan waa power source-kii weeye oo waa dabdaliyihii oo macnihii in wixii isku xiriirsamaan oo macni awoodii oo dhan weeye bahalkaas ma ahan marka kani wax ganacsi ma ahan kan ganacsi ma galo waa baaruud hatta qofku shaati masax haduu qabo oo intuu sa u taabto oo kan qabto waa qorxayaa macni iska badaa macni in baaruud iyo qaraxyo kale wax kale lagu xiray shaatiga kaliya macni qofka gacanta danabka ka dhashay kaliya buu ku qarxaa waa baaruud daga fudud oo khatar ah waana qarax kan kuusanna waxa la yiraahdaa LCR baa la yiraahdaa waa isku xirihii guud qaraxii iyo baterigii iyo haantii dhamayd weeye hadda qaraxa waxa kaliya oo ka maqan waxa kaliya oo qaraxi ka maqan waa baaruudii iyo haantii ay gashan lahaayeen inta hadii aan la helin qarax furi kara ma jiro wax la gado oo caadi loo gadana waxa jira bahalkaas jira inta kala deesi macnaheedu inta waa daba galnaa waa raadinaa anagu waxaan madaxdii waxaan nahay minada laakiin qalabkan bahashaasi waa sensitive weeye oo bahasha u khatarsan waa dilaa wax la gada maahan wax dukaan yaala maahan wax ganacsi loo keena maahan waa qarax way bahashaas ujeedadu waxay qalabkii qaraxa laga sameeyay baa meesha yaala intaas waa meesha qarax halkaas aan uga gudbayaa waxaan u gudbayaa kelmadii ahayd baabuurka ninku waa kireysan karaa
وانا سو كريستي وارن بابورك قفكو أدولة هانتيدي سو كريستان كرا لكن وحياله uusan qaadi karin oo kirada kama nooca jira waxaana weeye waxyaalaha uusan qaadi karin oo kamid ah wax ummadda haligaya inuu baabuurka saaro ama kira ka qaato ma